Itoobiya waxaanu ku sheegay in ay yihiin labadan magaalooyin ay isku khilaafsan yihiin labada deegaan ee Soomaalida iyo Oromada isla markaana waxa uu ka dalbaday in dadka ku nool laga qaado afti lagu go'aamiyo cid yeelanaysa warqadda uu madaxweyne Cagsharo u qoray golaha federationka oo uu helay karaamada TV waxa kale oo uu ku sheegay in sanadihii la soo dhaafay ay wada hadallo waqti dheer qaatay la yeesheen deegaanka Oromada oo ay isla qaateen in labadan magaalo laga gaaro go'aan buuxa waxa kale oo uu sheegay in Soomaali ahaan ay diyaar u yihiin aftida aqbalaadda natiijadeeda iyo weliba dhaqangelinta waxa ka soo baxa labadan magaalo ayaa sanadihii u dambeeyay lagu deegaameynayay dad badan oo Oromo ah sidoo kalena waxaa laga riixayay Soomaalida iyagoo jiray colaado dhex maray labada qowmiyadood waxaa sidoo kale la qorsheeyey oo raacaya labadan magaalo dhul kale oo hadda ku jira gacanta Soomaalida kuwaas oo la doonayo in laga hoos saaro warqadda madaxweyne Mustafa u diray golaha federationka Itoobiya oo la qoray 2020 oo ahayd xilli uu xilka hayay mas'uuliyiinta kale ee deegaanka Soomaalida xilalka ka haya waxaanu ku yidhi ujeedo magaalooyinka Diridhaba iyo Mooyaale oo ay ka jiraan shaqaaqooyin u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada